ceeb allaha asturo newskii waxaa haysta tan iyo maanta wax kalaba caalamka lagama sheekaynayo 47 qof oo Soomaali oo ku nool state-ka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo nawaaxigeeda in ay cuneen lacagaad ka badan malaayiin dollar oo loogu talagalay koroonaha in la siiyo familiyada guryaha fadhiya carruurta loogu talagalay lacagtaas ay waliba ku gateen oo la soo cadeeyay baa la yiri guryo baabuur dahab adduunyo dukaamada ay ka furteen ceeb allaha asturo bal videogan soo socda ila dhageysta subhanallah waa yaabay wallahi ceeb allaha asturo magacyadii muslimka saas ayaa loo soo daadiyay meel walba magacyo ku qoran wada Soomaali ah taas waxay damage ku sameynaysaa in mar dambe Soomaalida lama taageero ama dhaqaale noocan oo kale loo furo waayo waxay u isticmaaleen si xadka ka baxsan bal videogan ila daawada subhanallah announces charges in what they're calling the biggest case of COVID fraud in the United States. Our Pauline Lee was at that press conference that just wrapped up, and she joins us now with the details. Pauline. Yeah, that's right, Shayla. This case involves that nonprofit, the Feeding Our Future, which closed back in February as it faced this massive allegation of fraud. Investigators say it stole more than $250 million of federal money. That's your tax dollars, and it all happened during the pandemic. That money was supposed to go to feed needy children across Minnesota, but instead investigators say it was used to buy homes, cars, luxury